markabka sahaminta shidaalka dalka Turkiga ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Markabkan ayaa soo istaagay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka halkaasi oo haatan ay ka socoto munaasabad lagu soo dhaweynayo markabkaasi oo bilaabi doona howlgalka shidaal baarista ee Soomaaliya. Madax kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa munaasabadda soo dhaweynta markabkan oo ah mid taariikhi ah. Markabkan ayaa horaantii bishan xeebaha Turkiga waxaa ka soo sugootiyay madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo wasiirka batroolka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Markabkan ayaa Soomaaliya waxa uu ka fulinayaa baaritaano 3 aag ah oo ka kooban 15,000 oo kiiloomitir oo iskuweer. Sidoo kale waxaa howlgalkiisa uu qaadan doonaa qiyaastii 7 bilood si uu u sahamiyo kaydka shidaalka ee ku jira xeebaha Soomaaliya.